Asalaamu calaykum. Sheekadayni maanta waxay ku saabsan tahay gabadhan iyagoo yar waxaa dhinteen hooyadeedii iyo aabaheeda. Adeerkeediina waa uu soo waday, waxa uu keenay xaaskiisa si ay u koriso. Gabadhaasi eedadeedu waxay ahayd mid aad xaasid u ah oona gumaysata gabadhaasi, laakiin waxay ahayd gabar aad u wanaagsan oo hawsha u qabata waxay dhahdana yeesha, laakiin aad ay u ficili jirtay oona ugu xanaaqi jirtay, mar walbana ay ku qayli jirtay. Gabadhaasina waxay ahayd gabar masaakiin, waxayna dhashay gabar yar oo ayada lafac. Gabadhaasina maysan ahayn mid wax u qabata, waxay ahayd mid ayada isku mashquulsan oo hooyadeeda waxay rabta u keenta. Meel walba ee rawaanna waa isku raaci jireen. Maalin ayay u keentay toobo aad u fara badan oona isku baraweynaysay gabadhii. Toobab aad u qurux badan ayay u keentay. Gabadhii ayaa aragtay toobabkan ee walaashadii loo keenay. Aad ayayna u jeclaysato oo waxay ka codsatay inay hal toob oo kaliya xataa siiso, maadaama ay isku fac yihiin oona isku toob qaadan karaan. Laakiin waxay ku tiri aniga adiga isku toobna ma qaadan karno, maxaa isla shaqsi inoo dhigay, dharkaygana maxaa kaa galay, haddii ay badan yihiin hal xaba xitaa kuma siinaay. Gabadhii aad ayay ugu qayliso oo ku carootay. Waxaa imaaday hooyadeedii. Maalintaasi waxay u socdeen xalfad oo gabadheeda ayay ku dhahday soo bax, laakiin gabadheeda waxay ku tiraahday hooyo maxaan soo baxaa, gabadhan ayaa toobabkayga ka cisho la'ahay. Gabadhii eedadeedii ayay si xun ugu dartay oo waxay ka sheegi karta ayay ka sheegtay. Eedadiina aad ayay u carootay maadaama ay ku dartay gabadhan. Ayay waxay ku tiraahday adiga maxaa kaa galay gabdhan toobabkeeda, maxaana ku daba dhigay, hadday badan yihiin haddii ay yar yihiin ayaday midaas anfacaysaa, mise waxaa rabtaa gabadheedii inay xataa is qurxinin maad u diidan tahay oo adigana toob siiya yeelay. Gabadhii eedadii aad ayay ugu qaylisay oona ku carootay oo ku dhahday gurigaana iga sii nadiif waana baxaynaa. Eedadii iyo gabadheedii waa ay soo raaceen oo waxay aadeen xalfadii. Gabadhii kaligeeda ayay guriga ugu tageen. Waxay bilowday inay iska oyso maadaama hooyo iyo aabe aysan u joogin. Hooyadeedii ay la noolaydna sidaan ugu dhaqmayso. Gabadhaasi waxay ahayd mid masaakiin ah. Intay maqan tahay oo dhan guriga ayay u hagaajisay oo cuntadii ayay u karisay, meel walbana waa ay u nadiifisay. Waa ay isugu kari weysay. Sawirka hooyadeedii aabeed intay u tagtay ayay ku ag oysay maadaama kaligeeda cidla ku tahay. Eedadeediina sidaasna ula dhaqmayso oo waxay bilowday inay hooyadeedii la hadasho oo ku dhahdo hooyo maalintaad iga tagtay eedadan si xun ayay la dhaqantay oo waxay bilowday inay aad u oyso oo meesha hadal badan ku sheegta. Laakiin waxay maqashay hadal. Waxay bilowday inay raadiso. Waxay ogaatay sawirkaasi inuu ka soo baxayo cod, markaasi ay aad u naxday. Gabadhaasi mar naxdin ayay u ahayd, marna farxad ayay u ahayd. Hooyadeed waxay u tilmaamtay ceelka agdhewaay oo ku dhahday waxaad doontid weydiiso, halkaas ayaad ka heli doontaa. Horena u tilmaamtay ceelkii. Gabadhii ceelkii ayay soo aaday si ay u soo qaadato waxa ay rabto ayna weydiisato. Dhinacii ceelka ayay soo aaday. Markay ag imaaday ayay ku tiraahday waxaan rabaa toob oo aad u qurux badan ayaa rabaa. Toobabkii ayaa u soo baxeen. Gabadhii aad ayay ugu faraxday maadaama toobabkii lagu gumaysan jiray ee hadda haysato. Waa ay soo qaadatay oo xaafadii ayay kaga soo hormartay. Waxay bilowday xaafadii markii ay keento inay toobabkii isku baraweyso oo sidee ku tahay ogaato. Eedadiina maysan imaanin, laakiin gabadhii aad ayay ugu faraxsaneed. Xoogaa kadib ayay imaaday eedadii iyo gabadheedii. Markaas ayay qolkeedii imaadeen. Waxayna arkeen gabadhan inay haysato toobad aad u fara badan oona aadna ugu qurux badan tahay. Markaas ay aad u yaabtay ku dhahday ma gabadhii toobabkeeda ayaa soo qaadatay oo adigu waxaa naqatay qof tuug ma aho. Markaas ayay ku dhahday aniga tuug miihi, laakiin gabadhii ay ka dhex gashay oo ku dhahday anigoo toobabkayga waay tuug ayayna naqatay, waxaan rabaa toobabkayga isii. Gabadhii waa ay ka tagtay oo waxay imaaday meesha cuntadii. Waxay bilowday cunto inay cunto eena iska seexato. Laakiin gabadhan hooyadeedii ayaa u imaaday oo markii hurada ayay ka qaadatay toobabkeedii. Waxayna la soo aaday dhinacii gabadheedii. Markii ay qolkeeda imaaday ayay waxay bilowday inay ku dhahdo gabadheedii isku baroobay adigaa leh mana kula soo hadli doonto sidaa ku tahay isku baroobay. Gabadhiina waa ay gashatay, laakiin xoogaa ka bacdi korkii ayaa aad u cuncunay oo waxay bilowday inay qayliso oo ku dhahdo hooyo iyo caabi dharkan aad ayuu u cunayaa ee hooyo iyo caabi iga soo gaar. Gabadhii aad ayay u yaabtay. Waxay samaysay intay aqooweysay eedadii ayay waxay u tagtay gabadhii ayadoo cararayso oo waxay bilowday inay ku qalqayliso oo ku dhahdo ma anaga toobabkan ugu siraysay oo waxaad naqatay qof khiyaano badan
miyasaan ay ku markaas ay ku dhahday aniga saas maahan toobkan waxay siisay hooyadeeda adiga ayaa dulmisay oona iga qaadatay gabadhii waxay ku tiraahday aniga hooyadeeda camal ayaa ku ixtiraami jiray laakiin adaa saas yeeshay kadib hooyadeeda ayaa i siisay oo aniga toobkaasi u waxaysay gabadhii in badan markii la hadashay eedadii waxay dareentay gabadhan inay ku hayso dhibaato fara badan oo aad ay ugu murugtay waxayna ka codsatay inay iska cafiso ayadii gabadheedii oo dulmiga shaydaankiina ka faa'iidaystay waxayna ku tiraahday iska kii cafi oo ku baryayaa eedo xun ayaa noqday laakiin maanta ka bacdi waxaan ku ahay hooyadaadii oo kale iga raali noqo intaan ku kadeednay aniga gabadheedii hadda ayaan ogaaday qaladkayga oo dhan dambana uma laabanayay ee iska kii cafi gabadheedii oo kale ayaa tahay gabadhii aad ay ugu faraxday arrinka ay dhahaysay eedadii gabadhii ayaga maalintaasi familkii dhan waxay noqdeen famil aad iskugu faraxsan oona wax caqdad ka dhexaynin sheekadeenii maanta halkaas ayay ku dhammaatay fadlan muuqaalka like noo sii dhankaas iyo commentiyeena fikirkaadii nala wadaag sidaas iyo nabadgelyo